بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaantiin asxaabta qaaliga ah soo dhawaada marka ugu horeysa maanta waxaan nii tataaban doonaa ama nii sharxi doonaa sidaad ugu xiran karta mobilkaada data server marka asxaabay soo dhawaada marka ugu horeyso channelkan subscribe-ta like-ta wax dhan waa xaqiina marka ugu horeysa intaas markaan ka gudbo waxaa u baahan tahay siyaabo badan inaad u adeegsan karto qodobka koowaad haddaan gudaha u galo marka ugu horeysa waxaad soo furnaysaa setting-ka kadib haddii meeshan aan ku qorno developer applications meeshay ku qoran tahay haddaan ku dhufano kadibna meeshan ay ku qoran tahay auto update system soo sadii ku tahay waxaad saaranaysaa online ayaa ka dhiganaysaa dabadeetana waa ka baxaysaa kadibna waxaad taabanaysaa setting-ka ayaa soo furanaysaa connection-ka markaa gasho haddaan fiirino data usage meeshay ku qoran tahay saa markay kugu soo baxda meeshay ku qoran tahay muhiimadda waa meeshan data server meeshay ku qoran tahay asxaabi haddii off ku tahay lacalla waxaa ka dhiganaysaa online ayaa ka dhiganaysaa marka qodob kale ayadana nii sheegaya waxaa kamid ah ayadana Facebook inuu lacagta yahay meelaha aadka u cuno marka ayadana wuxuu leeyahay data server ayadana oo meel lagu xiro kadibna asiga setting markaa taabato saas aad u gasho waxaad taabanaysaa meeshay ku qoran tahay setting profiles meeshay ku qoran tahay taabanaysaa haddaad taabato ay ku qoran tahay meesha mobile data usage haddaad ku dhufato waxaa arkaysaa sida macnaha uu leeyahay mobile data usage inaad daatada dhaqaaleysan karto inaad waxyaalaha ku isticmaali karto marka meesha hadda naga anfacaysa aniga waxaa weeye use up to 40% less data by reducing video quality marka meeshaas ayadana tig yaraa saaraysaa marka hadduu ku yahay middan kore hadduu ku saariya midda labaad ayaa saaraysaa marka asxaabay naga iloobina subscribe-ka wixii su-aal aad qabtiin ama codsi aad qabtiinna meesha hoos igu reebo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبسكرايب كنا نقول